wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Injineer Cabdillaahi Cali ayaa magaalada Musqat kula kulmay dhigiisa dalka Cumaan Cali bin Sacuud Al-Sanadi wasiirku ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa madaxdii ay la kulmeen waxay kala hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ganacsiga ee soo jireenka ee u dhaxeeya dalalka Cumaan iyo Soomaaliya gaar ahaan dhanka xoolaha nool. labada dhinac ayaa waxay isku raaceen in loo baahan yahay in kor loo qaado tayada xoolaha si loogu dhoofiyo suuqyada gobolka iyo kuwa caalamka. wasiirada ayaa waxay sidoo kale ka wada hadleen in la helo is-afgarad u dhaxeeya labada wasaaradood oo la xidhiidha arrimaha ganacsiga iyo warshadaha isla markaana la sameeyo guddi farsamo oo ka shaqeysa sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka ganacsiga ee labada dhinac. waxay sidoo kale isku raaceen in la abuuro madal ay ku kulmaan ganacsatada Soomaaliya iyo kuwa Cumaan Somali Cumaan Business Forum. dhinacyadu waxay kaloo isla soo qaadeen in labada dal ay isku xiraan dhalinyarada leh hibada hal abuurka ganacsi maadaama ay haystaan daayar aad u badan oo ku wanaagsan ganacsiga casriga ee dhanka tiknoolajiyada. madaxda rugta ganacsiga Soomaaliya iyo kuwa Cumaan ayaa iyaguna yeeshay kulan gaar ah waxayna ka wada hadleen fursadaha ganacsi ee ay wada yeelan karaan labada dhinac waxayna isku afkarteen inay ganacsi wadaag noqdaan isla markaana ay yeeshaan kulamo joogto ah oo ay kaga wada tashanayaan kordhinta ganacsigooda. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Injineer Cabdillaahi Cali Xasan iyo wafdigiisa ayaa inta kadib booqday madaxafka qaranka dalka Cumaan kaasi oo ah meel lagu kaydiyo taariikhda iyo dhaqanka dalkaasi Cumaan. Abubakar Farxaan Cabdi Abubakar Abka wararka TV.